dowladda federaalka Itoobiya ayaa beenisay in ciidamo Soomaaliya ay ka qayb qaateen howlgalka sareynta sharciga ee dowladda dhexe ay ka wado deegaanada maamulka Tigreega. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo lagu magacaabo Dina Mufti waxa uu sheegay in ay been abuur yihiin wararka sheegaya in ciidamo Soomaaliya oo ku sugan Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalka dowladda dhexe ay ka wado deegaanada Tigreega. afhayeenkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu raaciyay xataa inaanay dagaalka qayb ka ahayn ciidamada Eritrea. dowladda Soomaaliya ayaa hore u beenisay in ciidamo Soomaaliya ay ka qayb qaateen howlgalka sareynta sharciga ee dowladda dhexe ee Itoobiya ay ka wado deegaanada Tigreega. haddana waalidiin Soomaaliyeed iyo khubaro ciidan ayaa wali warbaahinta ka hadlaya iyaga oo sheegaya in dhalinyaro Soomaaliyeed tababar loogu qaaday Eritrea ay ku dhinteen howlgalka dowladda federaalka Itoobiya ay ka wado deegaanada Tigreega. xukuumadda Muqdisho iyo Addis Ababa ayaa beeniyay in ciidamadan ay ka qayb yihiin dagaalka, laakiin waxa xusid mudan in toddobaadkan gudihiisa magaalada Muqdisho uu soo gaaray taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya General Major Burhan Jalu iyo madaxweynaha maamulka Oromiya Shimis Abisa. markan labada mas'uul ayaan la shaacin waxaana uu ahaa mid qarsoodiya oo 15kii bishan ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. labadan sarkaal ee sare oo ay soo dirtay dowladda dhexe ayaa xilli habeenimo ah ka soo degay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. intaasi kadibna waxaa loo gudbiyay Villa Soomaaliya oo ah halka looga taliyo Soomaaliya, iyagoona kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. inkastoo Villa Soomaaliya aanay ka hadlin arrintan, balse ila xogagal ah ayaa ii xaqiijiyay in laga wada hadlay xaaladda dalka Itoobiya, gaar ahaan dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda Tigreega. ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan kuwaasi oo dowladda dhexe amba xukuumadda Itoobiya ay hubka dhigis ku samaysay